سؤال وين أنا نصاي وتقانن وقت كستوحان اسكو ضيع معناه أظن نوشهاي sababta lagu abuuray meesha waxay tahay inaad sameeydo inta nolosha mar waliba inaan maalin bad dhinac idin ka tuso maanta marka waxaan rabnaa macnaha nolosha inaan ka dhax fiirino canug yar oo miraayad ka dhax arkay macnaha nolosha hadda waa nin weyn oo professor la yiraahdo Alexander Fulgham la yiraahdo Alexander noloshiisa markuu ka sheekaynayo wuxuu yiri marka ilmaha yar uu ahaa school ama class uu joogo macallimiinta waxaan caan u ah marka cashirkii waxa dhan ay dhamaadaan yaa su'aal kala qaba inay dhahaan markasta liira yaa su'aal kala qaba gacanta uu taaga jiray wuxuu dhigi jiray waa maxay macnaha nolosha waa lagu qasqas li jiray hayay birito la isku yimaada la dhigi jiray hadda uu nin weyn uu noqday oo professor psychology iyo philosophy waxa aad ugu dheereeyo wuxuu maqlay marka mar dhow oo wuxuu maqlay nin kale oo la yiraahdo Robert Barbadero oo dadkan nabadda mar walba horumariyay adduunyada iyo bini'aadamka nabadda kaga sheekeeyo nin aad loo jecel yahay iyo seminaaradii uu bixin jiray kii ugu dambeeyay oo ku yiri kaas daan bixiyay retire qaadana iyo ninkan Fulgham wuxuu helay ticket uu soo galay professorkii Barbadero casharadii markuu dhameeyay la kala tagay wuxuu yiri qof kale su'aal qabto ma jirtaa Robert gacantu taagtadana hay markaas uu waa maxay macnaha nolosha dad waaweyn meesha jooga talada qasleele loo istaag odagaan oo ninkan nabadda aad uga shaqeynayo seminaarka wadayna wuxuu bal fariisto yiri ninkan jawaab ayaan u haayay wuxuu yiri markii naatiinta oo reer Jarmalka iyo Hitler ciidankiisa ya meel yar ay degnaayeen ninkan odaga hadda sheekayna marka 12 jira ya wuxuu yiri ciidamadoodii iyo kuwa anagana ilaalina waxa u dhaxeeyo yiri dhufays oo siliga marka wuxuu yiri anigu anu yaraan ahaa waan soo dhawaaday waxaan imid yiri meesha silig kala celinaa labada ciidan waxaan arkay yiri marka shimbiro dhinacan inta ka duulaan dhinaca naatiinta u duulaa hadana soo noqonayo oo aanan ka warqabin labadan tangiya ama colaade is hor yaallo amba ka warqabin shimbirku iska biibiyo maanta soo dhan wuxuu dhinaca kale aan fiiriyo waxaan arkay yiri ciidamada bari hore marka moota la wada jiray waxaan arkay yiri mooto jajabtay cad yaro miraayado haadkeedii dhulka yaallo miraayadii aan qabtay yiri saan u gidgidinayay miraayadu markay qorraxda ku aadantay reflection ka iftiin soo celiska ay sameeyay iyo meelshi dhagxaanta mugdiga aan ku ifiyo yiri waxaan arkay yiri marka hadii si sax ah aad iftiinka isugu aadiso inaad inta mugdiga ku jirto aad ifin karto wuxuu yiri marka maalinkaasaan helayo yiri macnaha nolosha oo ah inaad iftiinka isku aadiso ama yaani waxad xaqa oo rabbi ku faray ama wanaaga ama nabad jaceelka inta isku aadisid iftiinka adiga ka soo baxayna kuwa aan wili fahmin waxa aad ugu ifido oo marka wuxuu yiri macnaha nolosha wax kala ma ahane mar waliba qof wanaagsan ama resource quraanki waxyigi waanadi waalidiinti nabad jaceelka isku aadi iftiinka markuu kugu dhacana inta wili qarracda ku jirto sida miraayado kale ifi hadda marka adiga laaftaada hadii aad rabtid inaad ogaato macnaha nolosha wax kala ma ahane adiga mar waliba horta meel wanaagsan xogta ka hel kadibna inta ama qabyaalad ama siyaasad ama wax aan loo baahnayn ku mashquulsan ifi oo xaq u sheeg waa mahadsantahay